السلام عليكم kusoo dhawaada dadaal academy casharku wuxuu ku saabsanaan doonaa family members conversation wada sheekaysi ku saabsan xubnaha qoyska. Bob iyo Jane ayaa wada hadli doonaa, sheekana ay dhex mari doontaa. Jane: hi Jane, how are you? Sidee tahay Jane? Jane: sidaa tahay. Sidee tahay ama iska waran Jane? Janow: Jane: just fine, hadda waan fiicanahay. Thanks Bob, waad mahadsan tahay Bobow. Just fine, hadda waan fiicanahay. Thanks Bob, waad mahadsan tahay Bobow. Bob: are you free this Saturday? Sabtidan sabtida free ma tahay? Firaaqa ma leedahay? Are you free? Firaaqa ma leedahay this Saturday? Sabtidan. Jane: oh, I have a family gathering in the evening. Waxaan leeyahay I have a family gathering. Waxaan leeyahay kulan qoys in the evening, fiidka. Why what did you have in mind? Maxaad ii weydiisay arrinka ama maskaxdaada maxaa ku jira? Why what did you have in mind? maskaxdaada maxaa ku jira ama maxaad ka fikiraysay oo arrinka aad ii weydiisay? Bob: I was thinking, waxaan ka fakarayay of going to the cinema, inaan tagno cinemoga with you. I was thinking, waxaan ka fakarayay of going tagida to the cinema, shaneemada, with you, oo adigu aad ii raacdid. Waxaan ka fakarayay inaan shaneemada isku raacno oo wada tagno. There is a good movie, waxaa jira muuqaal wanaagsan to watch, ay tahay in la daawado. There is a good movie to watch, muuqaal film fiican baa jira oo ay tahay in la daawado. But if you are not available, laakiin haddii aanad firaaqo lahayn, ayuu yidhi, haddii aanad firaaqo lahayn. But laakiin if you are not available, hadda aanad firaaqo lahayn. Jane: well, hagaag. It sounds like fun, waxay u muuqataa arrin wanaagsan. It sounds like fun, waa arrin wanaagsan. But actually, laakiin xaqiiqdii, I will be very busy on Saturday. But laakiin actually, xaqiiq, I will be very busy on Saturday. Sabtida aad ayaan mashquulsanaan doonaa, ayuu yidhi Jane. Bob: what do you have to do? maxay tahay inaad qabatid ama maxaa kula gudboon oo aad qabanaysaa? What do you have to do? maxay waajib tahay inaad qabato? maxaa kugu waajiba inaad qabato? What do you have to do? maxaa kugu waajiba inaad qabato? Jane: I have to pick up, waa inaan soo kaxeeyaa my parents, waa awowayaashay iyo ayeyaashay, at the airport, oon airportka ka soo kaxeeya in the morning, subaxii. Then dabadeetna help my parents, aan waalidiinteeda ka caawiya prepare for the gathering, isku diyaarinta shirka, kulanka, in the afternoon, galabtii. I have to pick up my grandparents. I have to pick up my grandparents, waa inaan ka soo kaxeeyaa waalidiintay awowayaashay ayeyaashay at the airport in the morning, subaxii. Then help my parents prepare for the gathering in the afternoon. Then help my parents, waa inaan waalidiinteyda ka caawiyaa. Then dadeedna help my parents, waa inaan waalidiinteyda ka caawiya prepare for the gathering in the afternoon, isku diyaarinta kulanka galabkii. casharkeeni maanta intaasuu ku egyahay. qaybta labaad la soconno insha allah.